nimanka kalmadayda haan looga kaco kursiga nimanka kalmadayda haan looga kaco kursiga aynay reer gabdhooyin yaa su'aalka qabo aynay reer gabdhooyin yaa su'aalka qabo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. taariikhaha waxbaa lagu soo xasuustaa arrimahan nimankan raggan reer gabdoon oo socdo oo muxuu ahaaye guuray tegayo oo ragga u tegayo oo rag wax la soo shirayo oo waxay isoo xasuusisay taariikh sheeko hore. nimanka horta reer gabdoon waa run oo taariikh dheer bay leeyihiin. rag geesiyaal ah oo xaqooda iyo xoolaha xaqooda ka maqan raadsaday ahaayeen. rag geesiyaalay ahaayeen. waxaan markaa soo xasuustay maanta sheeko, yacni waa nimanka berigii sayidkii ina maxamed cabdulla xasan oo aada maqasheen ayaa waxaa dhacday daraawiish baa nin ka dishay reer gabdoon. marka way soo baxeen xaruntii talex iyo sayidkii bay u yimaadeen. guddiga wafdiga waxaa hogaaminayay axmed gabdoon baa hogaaminayay. rag kalena waa la socdeen wada reer gabdoon ah. marka yacni raggaas geesinimadooda iyo muxuu ahaayey kartidooda iyo waxaa xaruntii bay soo istaageen. marka garacs baa la oran jiray oo inay niman reer beriya yihiin waa la arkay. daraawiishtii baa kusoo xoontay oo maxaa tihiin oo waa ka xaggaas ka yimaadeen baa la arkay. marka waxaa la yidhi qolaa kuwaa waxay qaateen waramadii intay qaateen warama soo qaateen bay ku dul warwareegaan ku dul boodboodaana waxay yidhaahdaan iyagoo sidaa ugu weegaarsanaya daraawiish nin diida dantiisa oo waramada saa ku yidhaahdeen iyagoo saa ugu meeleysanaya. markii dambe intuu adkaysan waaye odagii axmed gabdoon ahaa oo ragga muxuu ahaa odaga u ahaayo hogaaminayay baa yeer anigeedheh ali daraawish nin diida dintiis ali daraawish miihi daraawish nin diida dantiis erey haleysa bay lahaan jireen. waa xujo la yidhaahdo waa xujoobay waa lala cararay waa la kaxeeyey. sayidkii baa loo geeyey weli aysan u tegin dee xaruntii markaas soo galeen. marka bal eeg ninkaas odaga ah geesinimadiisa xaruntii taleex oo ina cabdulla xasan daraawiisheed isagoo dhex taagan bi daraawiish miihi bi ninkii diida dantiis intay ku qaqeyriyeen oo waran luunta ka gelgeliyeen. alaa kulli xaal waa la kaxeeyey sayidkii baa loo geeyey. waxaa sayidii ninkan wuxuu yihi daraawiish miihi buu yiri ma ahi daraawish buu yiri ninkii diida dantiis. war maxaa dhacay buu yiri sayidku de nin caaqil ah oo muxuu ahaayey xikmad iyo caqliba ilaahay siiyey buu ahaa. dee amiir ah oo intaasoo ummada hogaaminayo diintana dee si fiican xooga soo bartay. wde war maxaa dhacay buu yiri ma tiri ha sayidi waa il yiri maxaa dhacay wuxuu war sayidi rag la dilana waa arki jirnay rag la dhaafana waa arki jirnay laakiin rag qanjirkaas inta waran laga gelgeliyo la yidhaha daraawish diida dantiisa ba yidhaha waran luunta iga gelgeliyeen bu yiri war maahi anaa iri bu yiri war nimankaan waa wuxuu yiri maxaa iisha markaasuu u dhacdhacay iisha maxaa u timaadeen meesha. wuu u jeedaa niman reer beriya inay yihiin. marka sida taariikhda lagu hayo ina cabdulla xasan sayid maxamed cabdulla xasan madhibaan iyo wax kaleeto lama oran wuxuu aqoon jiray magac gooni u yaqaanay oo la baxay yaraxa loo oran jiray madhibaanka sida sheekooyinka lagu hayo oo waxaan midgaal iyo madhibaan iyo midna mausa oran jiray xataa yaraxa magac gooni ula baxay. marka waa loo sheegay nimanku inay yihiin nimankaas madhibaan bay sheegeen in nin laga dilay daraawishi ka dishay buu u sheegeen. waa istaagay wuxuu yihi nimankan diyadooda halkaa ah loo soo diray boqolkii geel ayaa baalqabkooda halkaa lasoo tubay waa lasoo tubay. wuxuu yihi hala kaxeeyo nimanka kan xero daraawiishe muxuu ahaa
inta deegaanka iyagu ay ka taliyaan hal dhaafiyo biyo rag buu ku daray ciidan wiil waxa kaxeeyo deegaankood markii xere muxuu ahaa waxaa la oran jiray xad bi kala lahaayeen kuley oo kuwa daraawiish iyo garcas baa la oran jiray aduu xerado deegaankooda markay galaan xuduudooda dhaafiyo buu yiri laakiin nin buu markaa gacanta ku dhigay waayo waa nin la oran jiray dheer waa ina maxamed gabdoon buu ahaa jaamac dheer la oran jiray waa ina maxamed gabdoon duriyadiisii waxaan u malaynayaa inay gabar ka joogto waayo jaamac dheere wuxuu dhalay faalmo jaamac maxamed gabdoon baargaal bay joogi jirtay yaraanteedii aan xasuustaa waxay dhashay dad aabiray u dhashay waa la yaqaanaa waxa weeye inaad wax ka garanaysaan baan u malaynayaa nin la oran jiray ciid cismaan iyo bulaale cismaan iyo gabadh aan u malaynaya inay nooshahay gelideeda ana maqal oo faadimo in la oran jiray umalaynaya cismaana oo iyaduna barigaas xaggaa hurdiye maahayn iyadu waxay jirta xaggaan caluule iyo xaggeedaasaan ku ogaa duriyadii jaamac dheere waa ina maxamed gabdoon kuwaa dad intaasaan ka aqaanaa marka waxay soo xasuusisay maanta raggaas muxuu ahaayey sheekadoodiiba soo xasuusisay reer gabdoon niman dhiigooda iyo xoolahooda ilaashada ay ahaayeen geesiyaal ah waa nimanka did xaruntiisii cabdulla xasan dhex tagay ma nihin daraawiish oona la garamay kana soo qaatay isna uu ka garqaatay wixii u socdeen iyo xoolahoodii muxuu ahaa diyadoodiina uu soo siiyey boqolkiiba baarqabkoodiiba usoo tiriyey marka wuxuu gacanta ku dhigay halkaa aan ku noqdo dheere uu yidhi kan waa darwiish idin raaci maayo waayahay bi rag waxgaraday ahay raggii hore waayahay sidaasuu dheere oo jaamac dheere jaamac axmed gabdoon uu daraawiish uga mid noqday muddo markuu sidii sheekada aan ku hayo dhowr sana ah uu daraawiish ka mid ahaa u dagaalamayay maanti dambe sayidka u yimi wuxuu sayidow haddee caruur iyo dad baan kasoo tegay haddee inaan caruurtii iyo reerkeygii aan soo firiyo baan rabaa oo wuxuu waa soo halgantay intaas aad daraawiishtii halgankaa soqolso waa ku fiican tahay waa ku mahadsan tahay xoolo buu siiyey iyo geel wuxuu yidhi soco reerkaaga reerkaagana inta muxuu ahaa la jir geelaasna kaxayso daraawiishtii buu ku daray xuduudda hala gudbiyey buu yidhi dheere oo jaamac maxamed gabdoon ahina sidaasu waa jaamac maxamed gabdoon weeye axmed gabdoon waa adeerkiis wuu la socdaa isagu waa jaamac maxamed gabdoon jaamac dheere weye sidaasu isagoo xoolo wato oo soo dagaalamay oo mataqaanaa daraawiish dhowr sana ka mid ahaa wadankii iyo barigiisii uu sidaa ugu noqday intaasna waa sheekadaasa soo xasuusay maanta raggaas ay wadaan marka siduu kheyrku ku jiro allah inaafajiyo intaasna waa iga sheeko yaroo taariikh ah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu